Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdikariin Axmed Xasan ayaa sheegay inay dhowaan qaban doonaan doorashada Golaha Deegaanka bisha Juun dhamaadkeeda. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale carabaabay in xisbiyadii isdiiwaangeliyay horraantii sanadkan, isaga oo tilmaamay in sharciga cusub ee doorashooyinka uu farayo in ay mar kale xisbiyada ay dib isu diiwaangelin karaan. Sidoo kale, Cabdikariin ayaa sheegay in ururada ay ka codsadeen in loo kordhiyo muddada oo lagu daro 21 maalmood, taas oo horey u ahayd muddada 31 Maarso. Dhowrkii maalmood waxaan wadahadal la sameynay ururadii horey isu diiwaangeliyay iyo kuwii weli shaqadoodu socotay, waxayna naga codsadeen in 21 beri loogu daro muddadii ahayd 31 Maarso, ayuu yidhi Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Soomaaliya Cabdikariin Axmed Xasan. maanta anaa idin yeeray sida caadada noo ahaydna mar walba oo aan rabno inaanu u gudbino bulshada Soomaaliyeed wax allaale iyo wixii news ah ama akhbaar ah oo la xiriirta doorashada golaha deegaanka ee lagu soo fool leh sanadkan, waan jecelnahay insha Allah taala inaan qabano bisha Juun dhamaadkeeda waxyaabihii soo kordhay inaan mar walba report garayno. saa la socotaan bishii Janaayo 20keeda waxaa la furay in ururada Soomaaliyeed ay isdiiwaan geliyaan. saa la socotaan 111 urur hore u diiwaan gashanayd. sharciga cusub ee doorashooyinku wuxuu dhigayaa in ururadii hore u diiwaan gashanaanana ay dib isku diiwaan geliyaan oo sharciyada cusub iyo systemka cusub ay soo raacaan, kuwa cusubna ay markaas ay isdiiwaan geliyaan. kuwii hore u diiwaan gashanaa lacagta $10,000 ahayd oo la soo rogay oo sharcigu farahayay ayaga kuwaas ma taabanayso, laakiin ururada cusub oo isdiiwaan geliya waxa waajib ku ah inay bixiyaan $10,000. soo bisha Janaayo 20keedii waxaan furnay in ururadii ay bilaabaan inay processkii isdiiwaan gelinta ay galaan, kuna ekayd bishaan aan ku jirno March 31deeda. saa la socotaan waxaan ku jirnaa bisheenii barakeysnayd ee Ramadaan oo gabagaba hadda noo marayso oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aad ogsoon tihiin inay bil cibaada tahay. saan ognahay bisha March 31deeda waxaa ka dhiman dhowr maalmood. dhowrkii maalmood ugu dambeeyay waxaan discussion la sameynay ururada siyaasadda, kuwa isdiiwaan geliyay oo shahaadada siinay iyo kuwii weli processkooda u socdo. waxay naga codsadeen in 21 beri loogu daro waqtigii deadline-ka ahaa March 31deeda. annagoo ka duulayna siyaasadda guud ee dowladda Soomaaliyeed iyo siyaasadda guud ee dalka oo ah in la furo saaxada siyaasadda Soomaaliya oo loo furo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u helaan chance ay ku muujiyaan fikirkooda siyaasadeed ay ku shaqeeyaan. annagoo taa ka duulayna guddiga sharafta leh ee madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee Soomaaliya shir ay yeesheen shalay waxaanu go'aaminay inaan ku darno waqtigii cayinaa qabanay oo ahayd in bishan 31deeda ay ku ekayd liiska musharaxiin ururadu inay ma aragtay uu xirmo inaan ku darnay 21 cisho. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in ay dalka ka qaban doonto doorasho qof iyo cod ah